Halkani waa Deefsame iyo anigoo ah Abdinaciim Aadan Xaaji. Ninkan aad u jeediin waa dhaftar u dhashay dalka Maraykanka, wuxuu ka mid yahay dhakhaatiirta ugu sarraysa dalkaas. Hase ahaatee, arrinta cajiibka ah ayaa ah inuu sharaxaad iyo cilmi baaris uu ku sameeyey habka ugu dhaqsiyaha badan ee neefta oksijiinta ah wadnaha loo gaarsiiyo, isagoo tilmaamay marka uu qofka madaxa dhulka dhigo inuu wadnihiisa xasilo uuna helayo neef iyo hawo qurux badan. Cudurro badanna ay daawo u tahay in madaxa dhulka la dhigo, sida sujuuda oo kale. Cajiib! balka waran sujuuda aan maalin kasno sujuudno, haddayba gaaladii ay leeyihiin caafimaad ayaa laga helaa, wadna xanuunkaana daawo ayay u tahay. So mahad ilaah ma aha oo inaan ku shukrino diinteena suuban, balse inagoo arrintaas la yaab uma arki doono, waayo Allah ayaa Qur'aankiisa waxa uu ku sheegay isagoo nebigiisa oo murugaysan la hadlaya: walaqad na'lamu annaka yadiiqu sadruka bimaa yaquuluuna fasabbix bixamdi rabbika wa kun min as-saajidiin. Alle wuxuu yidhi, waan ognahay nebiyow inay laabtaadu inay cidhiidhi dareemayso, sababtuna waa hadallada ay gaaladu kugu odhanayaan. Warkooda iska daa, tasbiixso, Rabbigaana u mahad celi, kana mid noqo kuwa sujuudsan. Aayadan ayaaba noo sheegtay anaka haddaan muslimiin nahay, alxamdulilah. Halkaas waxaa ka cad salaada inay daawo tahay, sujuuda in la dheerayana ay wanaagsan tahay. Alxamdulilah dheh haddaad muuqaalkan dhammaysatay, siina share garee oo la wadaag saaxiibadaada. Waadna ku mahadsan tahay.